بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفت له وولاك شاكر أخيار ورمانتي سو دوينت إنو كبودو وكبودو قصة أيانتان وكفكراي ومكجسة له وأنا وحسك ويدي أدين أعرف إنان كويديو وحارب إنان كويديو وليكا ما عرفتي المير وأورك هويديس أسوغو أرداي كصباح مركاسو فكتح انتو يرى عرر أصبي بحضي وولك كدع وغادي واحد رذي ومرسا أكتيسي تاغن كور وفيري shukumaan ay gacanta ku haysa dafka dhahay isku tirtiray laba mar isku duubo faka taxir hadana carriya ay soo qabto oo sida ku fakaday oo carray wili ma aragteen maya tirsoma aniga xataa ma arag waa qiso mucjiso leh mala awaal ah laakiin si aan macquul ahayn labadeenaba ina arag waxa ku sheegaa laakiin si qiso taas u eg oo macquulkii inay tahay iska dhaafay labadeenaba aan arag weligaa ma aragtay ilmo yar oo xataa markuu dhalinayo tabar la'aan intuu ka gaaray aan iskidin karin kadib iskidiski bartay xabad xabad isku dhigtay xamaarashada bartay xamaarash kadib gurguurad bartay gurguurad kadib haddana darbi qabsi iyo darbi ku socod bartay darbi socod kadib daadiheen yar bartay oo markii gacanta laga qabto laba tilaabo kaligiis qaadi karo dhulka ku dhaco haddana istaago laba tilaabo kale qaado dhulka ku dhaco haddana istaago afar tilaabo qaado sidaas ku wado ilaa uu ilmihii uu socodka barto marka dambana uu orodyahan ka noqdo oo socodkan caadiga ah oo maanta naqaano iyo mid dheeraad ah uu heerkaas uu ka gaaro laakiinse waxaas maalintii bilowga ahayd muusan awoodin oo uu dhalinayay wuxuu soo maray marar badan uu dhacay uu kufay uu istaagay marxalado badan uu soo bartay uu soo maray waxyaabo badan uu bartay marka dambena waxay u suurtagelisay socodka inuu barto si automatic ahna hadeer asagoo ka fikirin uu u socdo socod markiisa iska dhaafee uu u ordo marka labada qiso midna waa mid mucjiso leh oo aan la arkin midna waa mid la wada yaqaano laakiinse waxa su'aashan idin weydiinayo ama qisadan ama tusaalahan in kugu soo qaato waxa waaye qisada macquulka ah dadka ma ujeedaa ma wada rabaan midda mucjisada leh oo aanan macquulka ahayn qof kasto wuu rabaa mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay kuf oo kac kuf heede laakiin kac qof kasta oo naga mid ah wuxuu rabaa inuu guul gaaro laakiinse ma jiro qof naga mid ah oo rabo inuu guul daro ay ku dhacdo ama uu qalad sameeyo waana sababtaas idinkugu leeyahay midda mucjisada ah qof kasta wuu rabaa laakiinse macquul ma aha maxaa yeelay guul in aad gaartid macquul ma ahan adiga oo aanan qalad gelin adiga oo aan heede qalad gelin inaad guul gaartid macquul ma aha marka mawduuceena maanta waxaa waaye qaladka muhiimadda uu leeyahay sababta macnaha qaladka dadka uga cararaan siyaabaha looga bixi karo oo qaladkaas ma ujeedaa sida uga guuleysan karno oo qaladka si uusan noola noqonin caqabad qofna qaladku wuxuu ku noqdaa caqabad qofna qaladku wuxuu u noqdaa cashir uu wax ka barto uu guushi uu ku haminayay uu ku gaaro marka dadka guuleystayaasha ah dhan ma arkino qof aan qalad soo gelin ma lahan adiga waxaa laga yaabaa qalad inuu kugu dhacay qalad heede inuu kugu dhacayaa laga yaabaa qaladkaasna uu kula weynaaday uu aad iyo aad uu kula weynaaday oo macnaha wax badan dadka qaarkood niyad uu la kulmay qaarkood niyad iska dhaafay isdhiibeenba waxaa laga yaabaa adigoo arday ah ardayda wax ka hor aqrinaysa iyo macallimiinta inaad wax akhrinaysa aad ku horgaftay oo ku hor ceebowday oo qalad meeshaas aad ku gashay waxaa laga yaabaa inaad imtixaan gashay oo natiijo fiican aad filinaysay laakiin natiijo fiican iska dhaafay imtixaankii aad ku dhacday waxaa laga yaabaa hadaf aad lahayd hadafka ah xoogaa isku dayday laakiinse aad gaari weyso waxaa laga yaabaa ganacsi inaad bilowday laakiin ganacsigii aad ku guuldareyso waxaa laga yaabaa shaqo inaad codsatay laakiinse shaqadii laguu soo diiday waxaa laga yaabaa xiriir inaad qof weydiisatay laakiin qofkii
arjiga u qoratay iyo xiriirkii uu ku gacan seer waxaa laga yaabaa weydiiska iska dhaaf inaa heer guur aa gaartay laakiinse guurkii aa guursatay iyo gurigii aa dhisatay uu kaa burburay. marka markasto oo marxaladahaas ay kugu imaadaan midaa ku jirtid marxaladahaas iyo marxalado kale jiro tusaalayaal intaasaan ugu ekaadaan laakiinse marxalad kastoo marxaladaas kamid ah oo aad ku jirto ama aad soo martay waxaad dareemaysa qof guuldaraystay inaad tahay qalad weyn galay inaad tahay aad dareemaysay laakiinse marxaladahaas iyo qaladaadkaas aad gashay waxaa waaye waa sida caadiga ah ee nolosha tahay. haddiise qaladaadkaas dhici lahayn ama waxyaabahaas aysan jirin sida caadiga noloshaada ma ahaan lahayn ee mucjisada ka sheekeynayeen wiilka asagoo ordayo uurka hooyadiis kasoo baxay oo kaleeto aa ahaan lahayd oo macnaha qof processka caadiga ahay soo maray maba ahaan lahaynba. qof kastoo naga mid ah marka waxaa rabaa macnaha inaa kuu sheego qof kastoo naga mid ah qalad wuu ku dhacaa laakiinse waa la kala qalad badan yahay. qaladaadka la kala badan yahaan qofna waxay ku sababaan guuldarro inaa weligiis guuldarreysta ahaado asoo qalad ka cabsano meel iska fadhiyo qofna uu qaladaadkiisa saxo uu kuwii fadhiistay meesha iska fadhiistay uu dhaafo. marka labadaas ee dadka u kala baxayaan qaladkan waa lama huraan horta hore qaladka qof kasta wuu galaa waana lama huraan. nin pitbull ay yiraahdaan adiga xataa shaydaanka ma marka qaarkood wax saxan oo kuu sheegaya mugta waxa saxan inaa ka qaadatid wixiis kale iska dhaaf. marka pitbull ninkaas ay dhahayaana wuxuu yiri failure is the mother of all success. qaladka waxaa waaye hooyada qaladaadka oo dhan. qaladka waa heedhe hooyada qaladaadka oo dhan. qofkii macnaha guusha hooyada qaladka waxaa waa hooyada guulaha oo dhan aan ka wadaa macnaha guul qofkii rabo qalad ma nici karo maxaa yeelay guusha hooyadiis yaa waaye guushan hooyadeed waxaa waaye qaladka waaye ma arkino haddayse qalad uusan jiri lahayn ama guuldarre aysan jiri lahayn guul maba jirteenba. tusaale kasoo qaad adiga macnaha waxaa waaye gabaraa tahay wiilaa jeceshahay aa rabtaa inaad guursato laakiinse hooyadiisaa neceb tahay wiilka wuxuu ku leeyahay saa camal waaye arkino macquul ma ahan hooyaday haddaa saas u neceb tahay adigii ayada isma fahmaysan adigii macnaha aniga aa i rabto hooyadii isoo korisay aa macnaha aan jeclahay qof saan u neceb aniga nafta ima siinaysa inaa la noolaado. wiil gabar haddaa tahan sidoo kaleeto hooyada adig kusoo korisay aa jecleed oo fiicneed nin ka adiga inaa ku guursado uu rabo hadduu hooyada ifka ugu neceb yahay kawar macquul miya qofkaas inaa isfahantiin ama haddaa isguursatiin xataa xiriirkiin intuu jiri karaa aad uminuus u waarana laga yaaba maxaa yeelay qof kuu qaali ah oo aad aa u jeceshahay uu asagana qofkan uusan arki karin uu adduunka ugu neceb yahay. marka muhiimadda uu qaladka leeyahay waa meeshaas macnaha guul kasto waxay ka dhalataa qaladay ka dhalataa oo macnaha hooyada haddaysan jirin meesha ilmo ma soo baxaan aabbahan bilaashu iska daalina ma ahane hooyo haddaysan jirin meesha ilmihii oo guul oo gabar ah iyo guuleed oo wiil ah oo macnaha guulihii la dhahayay ma jiraan haddaysan guuldarradii oo hooyo ah ama qalad ah aysan jirin. marka guuldarrada ama qaladka waxay aas u tahay guul kasto oo uu rabo qof aadana ah inuu gaaro. marka noloshana qof heed aan qalad gelin ma guuleysto qof aan qalad gelin ma guuleysto. waxaa qodobka ku xiga ah marka qaladka maaha wax ay dadka ka cabsadaan waxay ka cabsadaan qaladka marka ay galaan dadka waxa ay isleeyihiin dadka badankood ka cabsadaan oo qaladka keliya ah adig keliya guri haddaad joogtid maanta ma arkino waxaa aragtaa samayn kartaa oo codkaagaa tijaabin kartaa jimicsigaagaa tijaabin kartaa waxyaabo badanaa isku dayi kartaa laakiinse laba qof hortooda ka sameeya haddii uu dhaho waxaa leedahay may maxaa yeelay waxaa ka cabsoonaysaa inaad qalad gasho qaladkaasna ay dadka arkaan. marka dadka badankood qaladku maahan waxay ka cabsadaan waxaa waaye waxay ka cabsadaan dadka markay qaladka arkaan waxa ay isleeyihiin waxa ay isleeyihiin ay ka cabsadaan. marka waxaa ogaataa qaladka inuu yahay fursad qaladka inuu yahay cashir qaladka inuu yahay buundadii
isku xiri lahayd ma arkino buundada isku xirto guuldarrada iyo guusha oo u dhaxaysa meeshaas haddaada ma arkino buundadaas aad ka gudbin qaladka ah meeshaan dhinacan kale taa joogaysaa oo weliga guuldarrada ah inaa martid waa marka buundadan qalad kala dhahay inaa martid waa haddii kale dhinacaas kale taa joogaysaa oo guuldarrada ah qaladka waxaa waaye wadadii loo mari lahay guriga guusha inaad tagtaa harta dhinacaas ku yaalaa wadadan aa maraysid waxaa waaye qaladki waaye asxaabta Instagram mar waxaa la wadaagay caalim ka mid ah culimadii casrigan kuwa ugu caqliga badnaa nin lagu tiriyo oo Albert Einstein ay dhahaan wuxuu yiri failure is a success in progress marka waxaa waaye qaladkan ujeeda waxaa waaye guushi oo tartiib usoo socoto wadadii guusha aa ku gaari lahayd waayaba qaladka marka qaladka haddaad diidid waxaa diiday wadadii guusha aa ku gaari lahayd aad diiday qodobka macnaha ugu weyn marka oo hadeer qaladaadka macnaha muhiimadda uu leeyahay iyo waxyaabihii waa kasoo sheekeen laakiinse badanaa sidaa nooga barateen pagekan macnaha waxa idinkugu sameey badanaa mawduuca markaa ka sheekeyno ugu dambeyntii sidaas idinkagama tago waxaa raadiyaa xalka aa soo raadiyey wixii ilo qurxoonaaday qalabkiisi aa kula wadaagaa oo si aad iskugu dayda macnaha mawduucan amaanta ka sheekeynin dhibaatadiisa si aa uga baxdid qodobada ayaa kuusoo aruuriyey marka maanta oo qaladkan aan rabo inaa uga baxdid oo xalka aa ku raadinayno waxaa waa qodobka koobaad qalad inaad gasho waa lama huraan laakiinse qaladku wuu dhacay qaladka markuu dhacay inaa ogaatid waaye adi qalad inaa gashay marka aa ogaatid qaladkaas aa gashay mas-uuliyadda qaladkaas inaa qaadatid waaye kow waxaa waaye qaladka inaa ogaatid mas-uuliyaddiisana aa qaadatid maxaa yeelay oo aadan marmarsiyo raadin waa dheer tahay qodobka koowaad marka qaladka ogaaw qiro mas-uuliyaddiisa qaad marmarsiina ha raadin macnaha qof marmarsiyo raadiye oo dhahay hebelaa i xaasinimeeyey hebelaa i khiyaanay waa la ii cunsuriyeeyey fursadaa la ii diiday meel balaayo kale waxyaabo kale raadiyey dadkan wax ma fahmayaan waxyaabo badan oo marmarsiyooyinkaas kamid ah qofkii sheego mas-uuliyadda qaladka muusan qaadan ee mas-uuliyadda dad kaleeto u dhiibay dad kaleeto heedheh uu mas-uuliyadda u dhiibay uu dusha ka saaray macnaha oo wuxuu sugaa qaladkan dhacaayo waxaa la sixi karaa oo keli ah dadkaas inay cunsurnimada iska dhaafaan dadkaas inay fursad siiyaan dadkaas inay xaasinimada iska dhaafaan dadkaas inay khiyaanada iska dhaafaan dadkii ku xiray wixii oo dhan laakiinse asagii mas-uuliyadda isma saarna macnaha hadduu mas-uuliyadda asaga qaato wuxuu ogaanaa inuu isdiyaarin karo inuu macnaha fursado kale raadin karo inuu macnaha xirfadiisa kor u qaadi karo mas-uuliyad qaaditaanka marka taasaa laga wadaa haddaa marmarsii raadisid laakiinse mas-uuliyadda qaladkaagi maadan qaadin kow marka waxaa waa mas-uuliyadda qaladka inaad qaadatid marmarsiyadana iska dhaaftid dabcan mararka qaarkood irda lagaa soo xiraa way jiraan irdahaas fursado kale ku raadi insha allah ilaahay irda kaleeto kuu furaa laakiinse adiga irid waa laiga soo xirtay dadkaas qaladkooda waaye aniga qaladkayga maahan meelaa iska fadhiisana ma dhihi kartid kow marka taas waaye midda labaad waxaa isweydiisaa intee wax ka qaldan yihiin qaladkan wuu dhacay mas-uuliyaddiisa waa qaatay laakiinse sababta u dhacay iyo meesha wax ka qaldan yihiin aa isweydiinaysaa kow ma awood la-aana ahayso aniga horta horeeto oo macnaha awood maba u lihin yaa waxaan aa samaynayo ma khibrad la-aan waayo aragnimo la-aana ahayso oo waxaan waayo aragnimo u baahan yihiin ma waxaa ahayso diyaar garow la-aan oo anigoon isoo diyaarin oo macnaha haddaa meeshan wax soo qoran lahayn oo anigoo isoo diyaarin isoo hor istaago oo hadalka igu dhago isma soo diyaarin qaladka anaa iska leh anigoo haddeer isoo diyaariya mararka qaarkood waxaa akrinayay xoogaa waxyaabihii hadalka ila tagaa waxyaabaha qaarkood aa akrin weynaa marka qaladka anaa iskale oo soo diyaar garoobi waayey mase kaamiradaana iskale oo soo fiirinayso marka qaladka qofka ma diyaar garow la-aanaa ku haysa inaa ogaatid waa iyadana ma awood la-aanaa ku hayso ma khibrad la-aanaa ku hayso ma diyaar garow la-aanaa ku hayso ma aqoon la-aanaa ku hayso oo waxaan aqoon maba u lihid miha oo inaad baratidaa lagaaga baahan yahay ma dadaal la-aanaa ku hayso oo wixii aqoon iyo khibrad
iyo diyaar garow waa haysataa laakiin si dadaalkii kaa maqan oo kuma celcelinaysid ma dadaal la'aana ku hayso ma asxaab iyo mentor la'aan qofku hago kaa dhiman asxaab macnaha irdo kuu furo ku saacido ku dhiirigeliyo ama mase mentora kaa dhiman oo qof macnaha ku hago wadada kuu sheego qaladaadka meelahay ka imaanayeen kusii tuso meesha rabtid kuu sheego qofkaasaa kaa dhiman ma focus iyo diiradda kaa maqan macnaha ma qof hal meel u socdo wadadu aadi lahay aanan aqooninaa tahay oo marba meel ku buudaa inta ku buudaa inta ka dhacaya inta ku buudaa inta boqol jeer ku fiirsaa qasab waa markaas hadaad macnaha marba meel u boodaysa maxaa yeelay maalin kastaba meel cusub oo aad aqoon lugta iyo madaxa la gelaysaa marka midda ku xigta waxaa waa masabar la'aana ku hayso waxaas oo dhan waa haysataa laakiinse ma rabtid inaa wixii sugtid hadiiba inaa guul gaartid rabtaa macnaha uurka iyo hadaa ilmihii soo marna soo maahan waxaa kasoo qaadaa ninaa tahay xaaskaagiya uur inay leedahay 5 bilood ah kuu sheegtay oo maasha Allah waxa waaye waa farxday farxadii kaa badatay ilmihii waxa lagu sheegay wiil ama gabar waxay yihiin ilaa waxaa tiri 5 bilood waaya ilmaha ilaa hadeer inaan dhashaa rabaa warsee wax ka yihiin ilmaha macnaha waxa waaye weli ma gaar xilliga ku dhalanayeen 4 bilood waa ama 5 bilood waaye maya ilaa uur hadaa leedahay alxamdulillah waaye ilmahan hadeer meeshaas dhig maxaa dhacay markii dambeeto dhakhtar waayaba kasoo qaadba ninkii xaaskii uu qalaa ilmihii waa caloosh kasoo bixinaa ilmihii waxa waaye dhicis waaye inuu sii noolaanaan dhici kartaba marka sabar la'aantii ninkaas waxay ku kaliftay xaaskiisa nolosheeda inuu qatar geliyo uu qaliin geliyo ilmihiina asagoo dhicis inuu noloshu aqoonsado iyo noloshii hadhowtii dambeeto iyo ilmihii uu ku intifaaci lahaa maxaa dhaafsiiyey marka ninkaas sabar la'aana dhaafsiisay natiijadii ma ujeedaa fiicneed uu heli lahay sabar la'aana dhaafsiisay 5 bilood waa la sugay 4 bilood harta iska sug 9 bilood ku dhashaan geedka ma ujeedaa ama ilmaha wax kastaba macnaha waqti ay ku bislaadaan ay leeyihiin marka guusha laftirkeeda ayadoo ku bislaanin oo xilligeedii la gaarin soo gur hadaa isdhahdid miro ceyriin oo qaraar meesha ugu tagaysaa ama ilmo dhicis kasoo bixinaysaa marka dhicis iyo miro qaraar bisaad meesha ugu tagin haduu ilaahay idmo sabarka ayadana muhiim waa qofka sabar la'aan darteed ma qaladkan u gashay inuu isweydiiyo mase ugu dambeyd qaladkan waxa waaye mid maskaxiyan waaye oo qalad aad iska dhaadhiciso waaye qalad jiro maba ahaba fariina meel u dirsato kasoo qaad fariinta waa lagaaga soo jawaabi waaye sababta looga soo jawaabi waaye ma ogid adiga laakiin waxa iska dhaadhicisay fariinta dirtay mid xun ay ahayd ma arkino shaqada codsatay arjiga qortay shaqada codsatay waa lagu diiday dadkii may inay ku dhahaan bisay ka xishoonayaan oo aba may inaa ku dhahaan xataa umaba qalantid way ku yasaayaan sidaas iska dhaadhicis laakiin waxa laga yaabaa dadkaas macnaha fariinta ay u tagtay email qaldan inay ku siiyaan oo emailka macnaha si qaldan meel qaldan uu ku dhacaysa fursad u helin inay arkin muuqaalka aduuba khiyaare hadeer hadana qalad kala galaba ma arkino way iga kala go'ay muuqaalka dheeraad 18 daqiiqo memoryda telefoonka iga dhamaatay nal dhana iga dansanay macnaha muuqaalka bilawgiisa arki doonteen kan isku mid ma xoogaa nal yar u dhaxeeyo marka qaladaad galow ilaa hadeer waa ii socda aniga maasha Allah waan ku faraxsanahay inaan qaladaadkaas gadaayo oo khibrad ka aruursanayo meesheen ayaa kasii wadanayna marka waxa laga yaabaa qodobka ugu dambeeyay oo qaladka iska dhaadhicis maskaxiyan inuu ahaabo oo uusan wax jir uusan ahayn oo dadkan warqada dirsata casuumaad shaqo codsaneys ka soo qaad dadka emailka inaysan helin inuu meel qaldan ku dhacay inay ku soo jawaabi rabaan inay fasax ku jiraan fursad u helin inaysan weli akhrin inay weli akhriyaan marka waxyaabahaas oo dhan dhici karto qodobkaas kaas waa marka maskaxiyan inuu wax ka imaadeen laga yaabo oo qaladka u maleynayso uusan jirin qodobka saddexaad waxa waa hadeer sababta qaladka u dhacay meesha uu ka imaanaya waa ogaatay waxa laga rabaa marka inaad saxdid mid maskaxiyan oo iska dhaadhicis bis fahmiya oo hab fikirkaaga inaad bedeshida loo baahan yahay oo qalad wax fiican oo aragtid ama uusan dhicin ba qaladkaas adiguna iska dhaadhicisay taas haday hab fikir ahaan haduu yahay qaladka inaad ka saxdid hadii kale meelihii kale oo xirfad la'aan khibrad la'aan sabar la'aan waxyaabahaas awood la'aan tababar la'aan dadaal la'aan wixii kale haday ahaayeen oo asixi kartid inaad saxdid oo meesha ku sixi lahayd hawsheeda aagis qodobka ugu dambeeya oo afraad waxa waaye marka qaladaadkii hore gashay ha ku celin cashirka baro qalad cusub samee laakiinse qaladka hore kugu dhacay cashir inaad ka baratid waaye oo aadan ku celin oo aad mar kale sameyn oo hore ugu sii socotid
oo horumarkaaga maalin kasta uu hore usii socdaba qalad cusub aad samaysid. Marka afartaas qodob insha Allah u qaado tala ahaan. Ugu dambeynta waxaa kusoo gabagabeynaa marka saddex oraahood. Oraahda koowaad Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam aa laga soo wariyey, Anas bin Malik aa kasoo wariyey oo ahayd Anas bin Malik nabigu wuxuu leeyahay marka sallallahu alayhi wasallam, kullu bani aadam khadaa'un wa khayrul khadaa'ina at-tawwabun. Ibni aadamka oo dhan way qaldamaan, laakiinse kuwa qaldama kooda ugu fiican waxaa waaye midkii qaladkiisa kasoo laabto oo qaladkiisi saxo. Ma arkino qaladkaaga inaad kasoo laabtid xataa diinteena farayso ma arkino lama huraan way ku leedahay qalad inaad gashid, laakiinse dadka fiican waxaa waaye dadka qaladkooda kasoo laabto oo saxo oo qaladkooda aan ku laaban. Mahmaah oo lahjadaha Soomaalida aan ka jecelahay mid kamid ah lagu yiraahdo waxaa jirta oo dhehaysa oo banaar galaas timbo, oo micnaheedu yahay ma arkino hadaa mar banaarta aad gelayso hore usii quus, hore usii quus. oo Soomaalida dhalinyarada ayaamahan dambe meeshay ka dhahaan dhiiqa lugaha kula jirnaa, marka waxay ku leeyihiin dhiiqada lugaha hadaa kula jirtid iska sii dhex dabaalo ma ahan. Fikrad qaldan waa marka, fikrad qaldan waa murtidaas ee Soomaalida leedahay. Lahjada keliya ahna laguma eedeynayo, waxaa ogaatiin Soomaali oo dhan iyo aadan oo idil waaye macnaha mentality noocaas ah. Qofka hadduu dembi galo ama uu qalad uu galo uu isdhiibo oo meeshii iska sii dhex fadhiyo macnaha aadanaha dhan ay ka qaldan tahay taas. Marka taasoo kaleeto inaan iska jirno oo nabiga siduu noo sheegayo haddaa qalad gashid kasoo laabo qaladkaaga sax, ilaahayna wuu kugu jecel yahay. Toobadkeedkana wax fiican waaye iyo qaladka in la saxo. Midka ku xiga waxaa waaye oraah aan la wadaagay asxaabteeda Instagram oo u dhaceysa sida tan: waxba haddaadan samayn wax qalad ah maadan samayn oo aanan ka ahayn qaladka ah in aadan waxba samayn. oo micnaheedu yahay macnaha qofka aan waxba samayn oo qaladka iska ilaaliya asoo qalad ka cabsoonayo, qalad muusa samayn, laakiinse inaad waxba samayn oo meel iska fadhiso ahba qaladka ugu weyn oo aad samayn kartid. Maxaa yeelay inaad meel iska fadhisid oo macnaha waxyaabaha fudfudud aad samaysid laguma abuurin. Ilaahay caabuditaankiisa kadib wax kaleeto lagu abuuray oo awood u leedahay iyo dad inaad caawiso lagugu talagalaa jiraan. U kac waxaas, qaladka yuusan caqabad kugu noqon. Haddaa qaladka ka cabsootid oo meel iska fadhisid taasaaba qalad weyn ah, qalad weyn ah. Qalad haddaa samaysid maasha Allah ku farax, cashir waaye wax ka baro, waxaan ogaanaysaa inaad hore u socotid oo meel cusub aad baroobeynaysid oo qof meel iska fadhiya aadan ahayn. Midda ugu dambeyso oo ay idinkaga tagayo waxaa waaye John F Kennedy madaxweynihii la dhihi jiray Mareykanka ahay, walaalkiis Robert F Kennedy oraah uu yiri oo ahayd only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. oo macnaheedu yahay keliya kuwa ku dhiirado in ay galaan qalad weyn qofka ku dhiirado inuu galo kuwaas qofkaasaa guul weyn qof gaaro ugu dambeyntii. Macnaha dadka qaladka ka cabsoodo oo meesha iska fadhiyo guulo waaweyn ma gaaraan. Waxaa qofka ku dhiirado inuu qalad galo inuu guul darro la kulmo qofkaasaa al-ultimo qofka guul gaaro. Marka adiga waxaa ku weydiiyey, ma waxaa rabtaa inaad meel iska fadhiso oo aad qaladka iska ilaaliso mise waxaad rabtaa inaad ku biirto kooxda qaladka ku dhiirato oo isku daydo oo diyaar u noqoto guul darro cusub inay la kulmaan ama qalad cusub ay sameeyaan? Labadaas kooxood mid aad dooranaysid adaa kuu daayay. Valentin waa raadsan reeb.